munaasabadan oo xilka ku wareejinayay taliyihii hore ee ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Maday Sheekh Nuurey Ufuro isla markaana uu ku wareejiyay taliyaha cusub ee ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Xasan Nuur Coljoog kaasi oo ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyihii hore ciidanka badda Admiral Maday Sheekh Nuurey Ufuro oo ku wareejiyay xilka taliyaha cusub ayaa kula dardaarmay ciidanka iyo saraakiisha ciidanka badda Soomaaliyeed in la shaqeeyaan taliyaha cusub saacadii liidan baad hal idin helo yaan seegin waa nimanka tacliinta leh oo maraakiibta ku shaqo leh mooyna waxaan la inta kale taliyaha toosan oo la shaqeeyo si cadaaladaan ula shaqeeyo xagar la'aan ula shaqeeyo isfahamna insha Allah ilaahay ka dhigay taliyaha cusub ee ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Xasan Nuur Coljoog ayaa sheegay in uu halka hadda ay marayaan howlaha taliska ciidanka ilaalada badda uu ka sii xoojin doono ilaahay baan ka baryaynaa inuu hore noo sii wado oo meesha uu taliyo Ufuro noogu dhiibay aan ka sii socono anaga oo kaashanayna xoogiina iyo aqoontiina saraakiisha la hadlaya xoogiina iyo aqoontiina iyo waayo aragnimadiina saddexdaas anagoo kaashanayna waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan sii socono oo aan soo noqonin koow taliyaha daaya wuxuu yiri hal idin helo anigu ciidankii hore ka bacdi ciidanka lama arkin laakiin ciidanka hore uu taagnaan jiray haddaan ciidanka xiisana seexdaan rabaa sababtoo taliya banaan ka soo toosay ma baan lahayn jirin hadda la tababareen oo leedayna saar si aan saar hadda la sameeyo sideeda hore hadda yeelo ciidanka inaan dhex seexdo weeye habeenkii askartu waardiyaasay u haysan ogaana weeye wixii saasay noqonaysaa madaxa hoggaanada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sarreey Guuto Maxamed Maxamuud Xasan Qaafo ayaa ka hadlay muhiimadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u leeyihiin dalka isagoona tilmaamay in ciidanka ilaalada badda ay u taalo howl culus loogana baahan yahay in ay ka soo dhalaalaan hawshooda dad isla shaqeynaya meel gaar ee dal kala uura ama kala afa ama kala wajiyo meel ma tagaan saadaradeed waxa maanta la ii soo diray inaan goobjoog ka ahaado labada taliye ciidanka cirka ciidanka badda iyo taliyaha cusub ee ciidanka badda kala wareejintooda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkanba waday dadaalo ay ku dhisayso tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si loo helo ciidan awood leh iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.